Halkani waa Gaacar Media Tube. Dhageystayaasheena iyo daawadayaasheena sharafta mudan ku soo dhawaada barnaamijka wixii cusub ee Gaacar Media Tube. Barnaamijka wixii cusub waa barnaamij aad u xiiso badan oo aan idinkugu soo gudbino mar walba arrimaha sayniska, teknoolojiyadda, difaaca, arrimaha bulshada, dhaqaalaha, siyaasadda iyo wixii la midka ah. Haddaba maanta waxaan idinkugu soo gudbin doonaa drone-ta cusub ee nuclear-ka xambaarta ee badda hoosteeda martay ee Poseidon la yiraahdo, taas oo uu soo saaray Ruushka. Drone-tan Poseidon ee badda biyaha hoosteeda marta waxay awood u leedahay in ay xambaarto hubka wax baabi'iya ee nuclear-ka. Sidoo kale waxay awood u leedahay in ay abuurto ama sameyso masiimo tsunami ah si ay u qalqalgeliso ama u maran habaabiso diiradda cadowga. Dhageystayaasheena iyo daawadayaasheena sharafta mudan, intaanan u guda galin faahfaahinta warbixintaas, fadlan subscribe, share, like iyo follow dhaha page-ka iyo channel-ka Gaacar Media Tube ee aan ku kala leenahay Facebook iyo YouTube-ka. Waa mahadsantihiin. Aan ku bilowno. Drone-ta Poseidon waa drone sidii maraakiibta gujisada badda hoostooda mara oo kale ayay biyaha badda hoosteeda dhex mushaaxaysaa iyadoo cidna arkayn. Waxay ku qalabeysan tahay hubka wax baabi'iya ee nuclear-ka. Waxay si qoto dheer ama gunta hoose ee badda ay gaari kartaa gunta badda 1000 mitir. Sidoo kale waxay awood u leedahay masaafo ahaan in ay gaarto 10 kiiloomitir. Sanadkan 2022 hubabka halista ah ee wax baabi'iya ee uu Ruushka soo saaray waxaa kow ka ah drone-ta Poseidon ee nuclear-ka xambaarta. Haddaba drone-tan Poseidon waa drone badda hoosteeda quusta. Marka la ridayo ama la hawlgelinayo drone-ta Poseidon waxaa la dul saarayaa markabka Ruushka ugu magacdaray maalinta qiyaamaha, kaasoo la yiraahdo Belgrade, asagoo sidoo kalena badda hoosteeda waa markab sidoo kale badda hoostiisa quusa, markabka Belgrade. Haddaba drone-ta Poseidon ee Ruushka uu soo saaray waa drone xambaarta hubka nuclear-ka. Haddaba maxaa u gooni ah drone-tan Poseidon? Marka hore, Poseidon waa drone biyaha badda hoosteeda quusta ama marta. Waa drone xambaarta gantaalada nuclear-ka ee waaweyn iyadoo marayso badda hoosteeda. Waa drone noocyada sida gujisada badda hoostooda quusa oo kale. Sida aasaaska mashruuca drone-ta badda hoosteeda quusa uu muujinayo sanadkii 2015 warbixin ay daabacday Euronews, ujeedada drone-ta badda hoostooda quusa ayaa lagu sheegay in ay tahay burburinta cadowga ku sugan agagaarka badda, iyadoo burburinayso goobaha ciidan ee agagaarka badda agagaarkeeda ku sugan. Iyo sidoo kale drone-ta Poseidon waxay awood u leedahay in ay burburiso goobaha dhaqaalaha ee ku yaalla agagaarka xeebta ama badda. Haddaba drone-ta Poseidon ee nuclear-ka xambaarta ee badda hoosteeda marta dhererkeedu waa 20 mitir. Biyaha badda gunta hoosteeda waxay si hoose ama gunta hoose u gaari kartaa Poseidon 1000 mitir. Sidoo kale waxaa la ogaaday drone-ta Poseidon in ay socon karto ama gaari karto ilaa iyo 10,000 kiiloomitir, iyadoo ujeedadeedu ay tahay in ay burburiso diiradda cadowga. Ilaa iyo hadda drone-nada badda hoostooda mara xogtooda iyo liiskooda sir bay ahayd. Haddana xawaaraha ay leedahay darteed in laga hortago ama in la joojiyo in ay halis tahay ayaa lagu soo waramayaa. Drone-ta Poseidon waxay awood u leedahay in ay sameyso ama abuurto masiibo tsunami oo dadsame ah ilaa iyo 500 mitir tsunami uu dhererkiisu yahay, iyadoo kicinayso xeebaha iyo agagaarka badda. Magaalooyinkii ku yeelay sidii ay ahaan jireen ayay ka beddelaysaa oo gabi ahaanba waxay lagu soo waramayaa in ay awood u leedahay in ay burburiso. Jaraa'idka Daily Mail ee Ingiriiska laga leeyahay ayaa si qoraal uu soo saaray ayuu ku xusay drone-tan markabka xambaara ee la yiraahdo Belgrade ee badda hoosteeda mara sanadkii hore ee 2021 bishii Juun in lagu arkay badda cad, iyadoo xilligaasi markab kale oo dagaal oo la yiraahdo Dmitry Donskoy in ay hal meel ku wada sugnaayeen.
dhageystayaasheen iyo daawadayaasheen sharafta mudan. Intaa waxaa inaga barnaamijka wixii cusub ee Gaacar Media Tube. Barnaamijka wixii cusub kan xiga inta aan ku kulmi doono nabadiino.